Suldaan Yaxye Saalim Muuse oo kamid ah salaadiinta Soomaaliyeed oo safar dhulka uga soo ambabaxay magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Cabudwaaq waxaana meel ka baxsan magaalada ku soo dhaweeyay qaar kamid ah qaybihii kala duwanaa ee bulshada iyadoo loo soo gulbiyay gudaha magaalada Cabudwaaq waxaana intaasi kadib Suldaan Yaxye uu ka qayb galay munaasabad ay ka soo qayb galeen odayaasha waxgaradka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Cabdidaahir Maxamed Xareed oo kamid ah waxgaradka magaalada Cabudwaaq iyo qaar kamid ah qaybihii kala duwanaa ee bulshada ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan Suldaan Yaxye Saalim Muuse soo dhaweynta suldaanka beesha Jareerweyne Suldaan Yaxye Saalim waxaan leenahay suldaan soo dhawow ilaahay waxaan ku weydiinaynaa xilka lagu saaray inuu ku fududeeyo annaguna ka deegaan ahaan waan ku soo dhaweynaynaa bin Saalim suldaanada Soomaali aad ku saamitahay waa ku saacideena si walba ahaato annagana kuwii garabkiisa naqda taageera Allah naga dhigo daada gabaydood iyo murtida hadalkayga waxaan ugu dan leeyahay inaan danaha sheegaaye dulmiga ma ah dadweyne waa dadaalkayga aan idin soo dhawaataan ilaan hami duruusan iyo dadaal laaban iyo dareen ka fog baa waxaga damiir togan baa fikradama ahamiga roga naftuna waxay doonaysaa nolosha doorkeeda wacan inay daashana mar rabo dardaaran waan faraa waxaan ku daraa cabsida eeba taqwadii digriga dadka qaar baa ku nacib guushaada badbaada fira dakana adigoon u hayn dad baa jira kula xintama jacliya jannada eeba iyo carafteeda jacliya Jareerweyne oo hal jid ku socdo isku jaha annaga waxaan nahay qoomiyad lan oo buuxa waxa jirto waxyaabo aan ku dulmannahay aan ku helin xuquuqdeena aan doonayno inaan ku helno xuquuqda aan ku leenahay dalka waxaan nahay dad u dhashtay dalka manihi shisheeye ama manihi dad kale oo ajnabi ah sidaan hore u sheegnay maaha suldaanka suldaan shalay maanta ah maaha waa isma ognahay Dhuusamareeb aan ka sheegnay halkaan aan ka sheegaynaa waa suldaan soo jireen ah ilaa iyo 30 oday anaga naqaana oo Yaxye aan ka tirin karnaa oo suldaamo ah Yaxye inaad nala soo dhaweysaan waad ku mahadsantihiin hadaatiin reer Cabudwaaq hadaatiin reer Galgaduud hadaatiin reer gobolada dhexe hadaatiin insha Allah taala maanta waxaan xalfadiisa u fadhinaa walaalkayna suldaankeena Cabudwaaq baan ku soo dhaweynaynaa walaalkayna soo dhawaada magaalada Cabudwaaq gurigii nabadda oo ku soo dhaweynay Suldaan Yaxye Saalim Muuse beesha Jareerweyne way fiican tahay inaan qof madax aan yeelano ilaahay madax maanta waxa madaxna Suldaan Yaxye Saalim Muuse ugu dambeynta ayaa Suldaan Yaxye Saalim Muuse oo marka hore ka mahad ceshay soo dhaweynta loo sameeyay ayaa ka codsaday in la garab istaago xilka loo igmaday sidanaha ay isaareen qoomiyadda Jareerweyne iyo dadka degan oo dhan Galmudug waxaan dhex joogi jiray anigoo ah injineer guud haddana maanta waxay igu soo dhaweeyeen anoo ah suldaan qabiileed anaga haddaan nahay qoomiyadda Jareerweyne Galmudug nagula tixgeliyey waa nagula soo dhaweeyey waxa aad u dareemaysaan waxaan ku nahay ku dhashay oo tixgelin ku leh qoomiyadda beesha Jareerweyne aan dalbayaa inay dadaalaan ay qabsadaan diinta islaamka ay tixgelin sameeyaan dadka ay la noolyihiin sida hore ay ku dhaqmaan madaxweynaha waxaan leeyahay waa isoo dhaweyseen sidaad isoo dhaweyseen ilaahay ajri xasanaad adinka siiyo Cabdirsaale Deele warbaahinta SBC magaalada Cabudwaaq shirkadda isgaarsiinta ee Golis Telecom waxay macaamiisheeda u soo kordhisay adeegga casriga ah ee kayd waa adeeg macmiilka u sahlaya in uu nambarada ugu jira sim kaarka Golis dhib yaraan u kaydsan karo soona ceshan karo haddii uu kaarku ka lumo ka ciladoobo ama se laga xado si aad isaga diiwaan gelisid adeegga kayd fadlan macmiil raac tallaabooyinka soo socda ugu horreyn soo kici abka Golis Services kadib dooro adeegga kayd ugu dambayntana dooro isdiiwaangelin fiiro gaar ah adeegani wuxuu ku shaqaynayaa simkaarada Golis ee cusub macmiilka haysta kaar qadiim ah waa inuu tago xarunta Golis ee ugu dhow si kaarkiisa loogu cusboonaysiiyo faahfaahin wixii intaas dheer la xiriir xafiiska qancinta macaamiisha ee Golis Telecom adiga oo ka wacaya teleefanka uu lambarkiisu yahay 121 Golis Telecom haqabtiraha baahida isgaarsiinta